habeenka arooskaaga taleefka u dhiibi lahayd taleefankeyga jeebkeyga qofka mu dhiibi lahayd taleefankeyga الله ما شاء الله تليفون كي يقول لي لا إلين هذين كشخ بدن ما خبط على جرام وسعيد والله رياش بدن على الاستعمال حبيبي بيبي معاني رياش بقى الاستعمال بدنا بيبي هل محل هذا مقرقة أكو جعله ما تدي بالهايت أكو أمن الله هو اللي أكو أمن عندك المدي بالهايت بيبي لوا تليفون كي أيوة دي بالهايت إن هو اللي ودي بلا ما عندي لا معنا تلفك هذا كمسؤولة أي وبن حبيبي معاني واحد لما يتسوى أرسل الحب ذي بيبي كودي أي ما قالش كذا بحريسته أنا حبيبي كم ذا خالي حبيبتي hordhaca daawateen waa qayb kale iyo barnaamijkeena galka dadweynaha oo shacabka muqdisho maanta aynu weydiinaynay su'aalo cajiib ah xiise gaaran leh su'aasheena maanta ama su'aalaheena maanta shacabka muqdisho aynu weydiinayna ayaa kala ahaa laba su'aal oo ahaa habeenka ugu horeeya ee qalgalkaaga ama arooskaaga yaad ka amini lahayd taleefankaaga gacanta iyo su'aal kale oo ahayd maxay yihiin ereyada ugu badan ee adeegsan lamanaashiis jecel xilligaa sababaha ay sameynayaan shacabka muqdisho jawaabo cajiib ay bixiyeen qaarkood ayaa si aan macquul ahayn ugu jawaabay su'aalaha aynu weydiinay aan isla daawano jawaabta reer muqdisho balse marka hore like share comment barteena YouTube sidoo kale page-keenana like iyo follow soo dhahay galka dadweynaha daawasho wacan jawaabta reer muqdisho iyo su'aalaha maanta aynu weydiinay marka ku soo dhawow YouTube-keena iyo kanalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noo bilaabay xamdi su'aalaha ku weydiinay deeramtahay su'aasha waxa ku leedahay habeenka ugu horeeya arooskaaga taleefankaaga u dhiiban lahayd ninkeyga u dhiibay ninka isagana mashquulsan yahay walaashaa u dhiiban lahayd waa tahay su'aasha kale waxaa ku leedahay ereyga ugu badan ee lamaanayaasha jecel wadaagga ama xiriirka jecel uu ka dhexeeyo ereyga ugu badan ee isdhahaan maxay tahay بيبي هل محل هذا مقرقة أكو جعله erey soo istaadi ma santahay kana galka dadweynaha adoo magacaaga noogu bilaabay waa gurad Umar waa gurada su'aalaha ku weydiinayna diyaar mu tahay diyaar ma su'aasha waxay ku leedahay habeenka ugu horeeya ee qalgalkaaga ama arooskaaga yaad ku aamin lahayd taleefanka gacanta ama u dhiiban lahayd ku aamin la hooyadii waan ku aamin cid kale mu dhiibi lahayd waa tahay su'aasha xitaa ku weydiinayna waxay tahay maxay yihiin ereyada ugu badan oo ay adeegsadaan lamanayaashiis jecel ama isdhaafsadaan kan waa xabiibi qaali weelkeyga qof bas wax adeegsan adigu ku adeegsataa marka ana qaali baa adeegsan ay lamanayaashiis jecel maxaa leedahay maanta waxaan leeyahay maari soo dhaweey oo maartay iskuul oo aadaan ku soo dhaweey marka hore galka dadweynaha adoo magacaaga ku bilaabay deeqo soo ku dina deeramtahay su'aasha waxa ku leedahay habeenka ugu horeeya ee arooskaaga taleefankaaga ku aamin lahayd oo u dhiiban lahayd صاحبتي u dhiibi lahayd saaxiibta oo kusina ku xigto waa tahay su'aal labada ku weydiinayna deeramtahay ayaduna waxa ku leedahay waxay tahay ereyga ugu badan ee isticmaalaan lamanayaasha Soomaaliyeed jecel ereyga ugu badan ee adeegsadaan بيبي لوا هذا محل استابرك أنا حبيبي يا جعله ما صنتها ما كانوا يقصدوا قال كده وينها ودوح أي مقع على نقوله عبد الله سلام كودينا ديرو ده سوى شو أقول لهاي هذيك أبوه رأي قال كاجا مروس كاجا يا تكون من اللي تلفها قاعد ما ودي بلاي دي أقول صاحبتي صاحبتها ودي بلاي إسرائيل أروس كاجا إذا ودي بلا حير وقفت على الدين غير توبه سبحان سوى شو قال كودينا حيتاي محيين أريد أقول لهم أنا إيش أديكسان يا مسلم صان حكمت على سوق كله حبيبته كله هذه أريد جعله كله لديكسان تقدر هذا ما عنا وبلاوي صاحب وكنا نعمة حمدخ حمدخ وصلك ودين هذا يرمتان ديار ما ساشا أقول لها هاي هبين كوجو ريا كذا كايا أما روس كايا تعرف كايا ودي باللايت هبين كوجو ريا أقل كذا ولا كي أم صاحبك ودي باللايت أفضل مقابل لين طيب هذا ساكن كودين هذا أقول لها هاي أريد أقول لهم أنا إيش استعمالنا وسجل حوي هاي إنه حبيبي حياتي معنتي هذا محل يستمك أنا قاعدة استعمالها أما قاعد يسوى هذا ما صدق ما كانوا يقصدوا قال كده وينها هذا ما قاعد نقول بلاوي والله صح هذا الحلوس ولا لا هذا لو دان يروى دان واتا وأول حساب على سماعات سألك ودينا دان متاعي سأشوف أقول لها إنك صهراء سوق سلك رجينا أقول لك 20 يسوي هذيك أراس كاي ثلاث كاي ودي بلاي ثلاث كاي تشوف كاي خم كم ودي بلاي هذا ما صدق سألك ودينا عتاي
maxay yihiin ereyada ugu badan ee lamaanayaasha Soomaaliyeed isjecel ay isticmaalaan كل يريد هذا صدا بيبي iyo isticmaalaan ereyada lamid ah iyo macaanta iyo هذا ما عايز أنا حبيب استعمال حبيب كليه ايش waxa kula dahay habeenka ugu horeysay ee qalgalkaaga ama arooskaaga taleefanka gacanta u dhibi lahayd lifkii gacanta ana hayslaa qof u dhibi lahayd Allah yasalaha saash hada ku diin dhacay tahay ereyada ugu badan ee lamaanayaasha adeegsadaan isjecel ama ay isticmaalaan kuwa kamid ah waxa kamid ah qaali حبيبتي احساسها كلها هذا كويس يستمر كده انا خالي انا خالي هذا ما صار ما قرب سلو الكنال كان قال كده وينها هذا ما عاكو بلاوي magacaygu waa ikraan axmed ikraanay soo ku diina deermta soo waxa ku leedahay habeenka ugu horeeyay arooskaaga yaa ku aamin lahayd taleefankaaga ma u dhiiban lahayd waxaan u dhiibi lahaa walaashii u dhiiban lahayd qofka u dhiiban lahayd may waxa ku aamintahay idinka walaashii aan dadka dhigay aniga soo dhiibi samaha waxa biyo qalqaalad yaa waday su'aasha kale ku diin waxay ku leedahay ereyga ugu badan ee lamaanayaasha Soomaaliyeed isticmaalaan ama isnaafsadaan kuwa kamid ah Soomaali waxay badan yihiin baby kowde marka aad shaqada maxay istaa aniga xabiibi ma santahay عبدول maxaa aslanat عبدول iyo salban rana ku diina deermta diyaarad su'aasha waxa ku leedahay habeenka ugu horeeyay arooskaaga taleefankaaga gacanta yaad ku aamin lahayd ama aad u dhiibi lahayd telefonkayga horta labada gacmood xataa kalsooni baad marka cilmi u dhiibi lahayn أنا أسكت الله. aysan la waxay وحقرر سعود بدل مقاس. واضح. سؤال قال معك ولا هاي. محيط هاي أرجع وبدنا هذه السنة لما نعيش جعلك أما أي سنة بصدان. وحاوي baby and I love you هذه كويس مع شاديس. أني مع بدن هذه كويس مع شاديس. أريد أي سمعة لما نعيش جعل. أريد وبدنا هذه السنة كويس كمدة. وعكمدة إن حبيبتي ينولشين هذا كويس سامك. أنا حبيبتي هذيك سدا ما صدق. لو كان قال كده دوينها هذا ما يعجبنا وبلاوي. وكلها ما شاء الله الحمد لله ما يعجبنا وبلاوي. ما يعجبنا محمد أخوة محمد أخو صالح وديننا. ديار متى. سلاش عقول هاي. habeenka ugu horeeya qalgalkaaga ama arooskaaga yaa ku aamin lahayd taleefanka ama u dhiiban lahayd telefonkayga الله ما شاء الله telefonkayga hooyaday u dhiibi lahaa ileen habeenka shaqo badan inaa qabtaa laga yaabo saacada هذا واسطة سؤال كلام جديد نعقوله ereyga u badan ay adeegsadaan lamaanayaasha jacayl kuwa kamid horta dad badan waxay adeegsadaan nolosheeda xayaati xabiibi macaan badankayga nolosheeda adduunkayga dadaas ka adeegsadaan adigu banta aniga wallaahi qof walba waxaan adeegsadaa aniga xaaskayga marka hore kusoo dhawow kanaalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga nagu bilaabay abu waa ku dhawaa magacayga saadax cabdishukuur axmed saadax oo sana ku diinaa diyaar u tahay diyaar waa sax su'aasha waxaa ku leedahay habeenka ugu horeeya qalgalkaaga ama arooskaaga yaa ku aamin lahayd taleefanka gacanta ama u dhiibi lahayd niyo wallaahi ana haysan la saay sababtu maxay tahay ومقطع أنا سعيد هذيك صح مكان خرسك إنه مقطع ما شاء الله يوجد السوار تحتها واضح سؤال كلا كدين نوعتها محوي هاي أرجع وبدأ لما نعيش إسجعل هذيك سلام والله هذيك سلام قبل بسوي هذيك سلام بيبي معانا قالي وعرض هذيك سلام أي اوكي هذه محل الساعة شخصيا طبعا أنا شخصيا بيبي معانا هذيك سلام سوي عندك هذيك سلام هذا صعب أبو ولا نرتي هذيك سلام بيبي معانا وكذا أي جعلك محل أبو ضمن جعل هذا صعب جعل فس نمدي أي أنا قدرنا نراسك ما قليش فريا مجا وكذا فريا سوق فريا ما صدق